xogtii ugu dambeysay dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku go'doonsan buur ku taala gobolka Hiiraan, kacdoonka shacabka oo mar kale weji cusub yeeshay, iyo madax horey u soo martay Soomaaliya oo talooyin muhiim ah u soo jeediyay ciidamada macawiisleyda iyo kuwa xoogga dalka. Muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso galwareed page nagu soo biir like iyo follow dheh muuqaalka la sii wadaag asxaabtaada kale mar kasta iyo meel kastoo aad joogtaan waxaan kaga mahadcelinaynaa had iyo goorba sida muuqaaladeena aad u daawato. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online. wararka ka imaanaya deegaanka Jicibow oo ka tirsan gobolka Hiiraan hoos tagana magaalada taariikhiga ah ee Buulaburde waxa ay sheegayaan in tan iyo shalay halkaasi ay ku go'doonsan yihiin dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo looga adkaaday dagaal dhowr jiha ah oo ay doonayeen inay ku qaadaan ciidamo fariisin ku lahaa duleedka Buulaburde kuwaasi oo isugu jira militariga Soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka ee u istaagay in deegaanadooda ay ka xoreeyaan ururka Al-Shabaab. buur ku taala meel aan ka fogeyn Jicibow ayaa wararku ay tilmaamayaan in Al-Shabaab ay ku go'doonsan yihiin tan iyo shalayna duqeymo lagu garaacayay. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa u sheegay idaacad ku hadasha afka ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya in wili Al-Shabaab halkaasi ay ku go'doonsan yihiin qaar ka mid ah ay soo dhiibeen qaar ay toogteen isla markaana kuwa kale ee halkaasi ku jira ay ugu baaqayaan in ay soo dhiibaan si loo nabadgeliyo naftooda isla markaana waxa sharciga uu qabo loo marsiyo. dhinaca kale deegaankaasi Jicibow waxaa goor dhow gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan saraakiil ciidan oo aad u culculus xildhibaano wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaana ka mid ah xildhibaanada qaybta ka ah wafdigan xildhibaan Maxamed Ibraahim Mucalimo oo ka soo jeeda deegaanka isla markaana dhowr jeer oo hore ka badbaaday isku dayo dil oo ay Al-Shabaab u soo maleegeen oo midkii ugu dambeeyay uu ahaa qarax ismiidaamina. sidoo kale waxaa la filayaa in wafdigan ay qiimeyn ku sameeyaan khasaarihii halkaasi ay ku soo arkeen oo la xiriira dagaalkii xoogganaa ee shalay ilaa iyo xalay dhex marayay ciidamada huwanta ah iyo kuwa Al-Shabaab. waxaana dadka deegaanka ay muujiyeen inay ka qayb qaadanayaan dagaalka xooggan ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. sawirro lagu baahiyay baraha internetka ee warbaahinta dowladda ayaa muujinayay haween caano iyo cunno ururinaya isla markaana sheegaya in furmaha dagaalka ay geyn doonaan sida qoraaladu ay muujinayeen. waxaana sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu sheegay in xilligan uu u muuqdo dagaalkii Al-Shabaab inuu idlaaday loona baahan yahay in hal arin laga taxadaro taasi oo ah in laga soo baxo deegaanada laga qabsado ururka Al-Shabaab. Waare ayaa sheegay in uu rumaysan yahay mashruuca Al-Shabaab inuu soo idlaaday isla markaana iyaguba ay bilaabeen inay is ururiyaan balse waxa loo baahan yahay ay tahay in laga fakaro wixii shalay sababayay in ciidamada huwanta marka ay meel qabsadaan inay isaga baxaan aysan soo laaban taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay waxa kaliya ee xilligan macquul ka dhigi kara in howlgalladan ay guuleystaan. Al-Shabaab waxay wajahayaan dhowr furun oo dagaal ah marka la eego dadka darsaarimaha ammaanka ayaa waxa ay qabaan
in al-shabaab ciidamadooda inta badan aysan u tababarneen dagaalada kafoolka balse ay u tababaran yihiin oo keliya dagaalada ku dhufo oo ka dhaqaaqda iyo qaraxyada. sidoo kalena waxaa isla arrintaasi horey u sheegay Cali Jeyte Cismaan, gudoomiyaha gobolka Hiiraan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sii adkaysanaysa in dagaalka ay sii xoojin doonto, isla markaana shacabka ku baraarujinaysa in dagaalka ay ka qayb galaan. muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. waan kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaaladeena had iyo goorba. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka. waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca. waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka, barashada akhriska higaada luqadda carabiga, barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga, xadiista iyo tafsiirka. waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya ataxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online.